ismaqal iyo daawasho wanaagsan waa markaanay qodobadii ugu xiisaha badnaa Soomaaliya iyo caalamka. Qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah faahfaahin ka soo baxaysa qarax lala eegtay ciidamo ka tirsan AMISOM, odayaal ka hor yimid ciidan ay dowladda federaalka Soomaaliya doonaysay in ay ka qaado deegaankooda. Warbixin ayaan iskaga haynaa fal uu sarkaal Turkish ah oo garoonka Muqdisho ugu geystay wiil Soomaali ah. Haddaba maxaa sababay? Wararkeena ayaad ku daawan doontaa. Tirada xildhibaanada Ahlusunna looga ogolaaday baarlamaanka Galmudug, Al-Shabaab oo soo bandhigay qaybtii labaad ergo ay ku jiraan haween, dowladda federaalka Soomaaliya oo waqti dheeri ah u heshay xabsi ku haynta Cabdirashiid Janan. Intaasina waxa ayaan wararka ugu door karoon warkeena. Markaani u diyaar garooba ayagoo intaasi ka faahfaahsan. aynu ku bilownay qaar ka mid ah shaqaalaha garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada Muqdisho ayaa maanta sameeyay shaqo joojin kadib markii mid ka mid ah mas'uuliyiinta duulimaadka Muqdisho ee diyaaradaha isla markaana u dhashay dalka Turkiga u dharbaaxay muwaadin Soomaali ah oo ka tirsan shaqaalaha garoonka. Falka uu sarkaalka sare ee Turkiga kula kacay wiil Soomaali ah oo ka tirsan qaybta taraafikada ee garoonka diyaaradaha ayaa waxaa ka dhashay gacanka hadal labada dhexmaray iyo dood badani oo ilaa iyo hadda ka taagan gudaha garoonka. Dhammaan shaqaalaha taraafikada haga diyaaradaha ama diyaaradaha soo degaya geliya baakinka ayaa maanta sameeyay shaqo joojin iyadoo ay halis gashay mid ka mid ah diyaaradaha shirkadda Turkish Airlines oo maanta ka soo degtay magaalada Muqdisho. Qof ka tirsan shaqaalaha garoonka ayaa caasimada online u sheegay halis weyn ayaa maanta dhacday waxaana isku baabi'i gaaray diyaaradaha baakinka ku jiray iyo diyaaradda Turkish Airlines oo saakay soo degtay kadib markii ay shaqo joojin sameeyeen shaqaalaha baakinka diyaaradaha, ayuu yiri mid ka mid ah shaqaalaha aeroboortka magaalada Muqdisho. Gacanka hadalka dhexmaray muwaadinkani Soomaaliga ah iyo sarkaalka sare oo ka tirsan garoonka diyaaradaha ee Muqdisho una dhashay dalka Turkiga ayaa ilaa iyo hadda la ogeyn sababta keentay, balse waxay caasimada online ogaatay in labada qof u dhexmaray dagaal gacanka hadal ah. Xadgudubyada ka dhanka ah dekadda iyo aeroboortka Muqdisho oo ay geystaan mas'uuliyiin Turkida ah ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay caadi ka ah Soomaaliya, waxaana Turkida rag iyo dumarba u geystaan gacan qaad waqtiyada qaar sababa dhibaatooyin maskaxeed. shabakadda caasimada online ayaa ogaatay xog ku saabsan heshiiskii dowladda federaalka Soomaaliya iyo Ahlusunna ka gaareen khilaaf ku saabsan tirada xildhibaanadii ay dalbatay Ahlusunna. Sida ila wareedyo lagu kalsoon yahay ay ka helayso caasimada online u xaqiijiyay dowladda Soomaaliya ayaa ugu dambeyntii Ahlusunna u ogolaatay in ay baarlamaanka Galmudug ku yeelato ilaa iyo 30 xubnood kadib kulamo xasaasi ah oo ay dhuusamareeb ku dhexmaray Ahlusunna iyo ra'iisul wasaare Kheyre oo hadda ku sugan Baydhabo. Ahlusunna ayaa markii hore dalbatay in baarlamaanka Galmudug laga siiyo 50% oo ah kala bar xildhibaanada Galmudug oo noqonayo 89 xildhibaan, balse waxaa arrinkaasi ka hortimid dowladda federaalka Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa Ahlusunna markii hore u soo bandhigtay in ay xildhibaanada Galmudug ka qaadato 15 xildhibaan, taas oo ay si weyn uga hortimid Ahlusunna. Ugu dambeyntii kulamo isdaba joog ah oo dhexmaray labada dhinac ay isku afgarteen in Ahlusunna la siiyo xildhibaano Galmudug ilaa iyo 30 xildhibaan. Baarlamaanka Galmudug ayaa lagu heshiiyey in tirada xildhibaanada Galmudug lagu daro 30 xildhibaan oo dheeri ah, taas oo ka dhigan in baarlamaanka Galmudug uu noqon doono 119 xildhibaan. Hase yeeshee heshiiska labada dhinac ayaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa in Ahlusunna ay soo xulista 30 xildhibaan u fiiriso habqaybsiga beelaha. Haddii Ahlusunna ay baarlamaanka Galmudug ku yeelato 30 xildhibaan, waxay lafdhabar u noqon doontaa natiijada cidda noqonaysa saddexda hoggaan ee ugu sarreysa maamulka oo la filayo in dhowaan loo doorto. Odayaasha dhaqanka ee magaalada Beledweyne ayaa waxay si adag uga hor yimaadeen amar ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya iyagoo dhanka kale dowladda ku eedeeyay faragelin inay ku hayso reer Hiiraan. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay amartay in ciidan ku sugan magaalada Beledweyne loo kaxeeyo gobolka Galmudug, kuwa oo ay sheegtay in wixii agab ah ay iyagu siin doonto. Ciidankani oo bilaa hub ah ayay dowladdu ka dalbatay in ay tagaan gobolka Galmudug. Odayaasha dhaqanka reer Beledweyne oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka
gobolka Hiiraan ayaa waxay ka hor yimaadeen amarka ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya. Odayaasha dhaqanka ayaa waxay kulanka kadib sheegeen in ay ciidamadu ka bixi doonin magaalada Beledweyne isla markaana aynan tegaynin magaalada Dhuusamareeb. Odayaasha dhaqanka ayaa sidoo kale waxay dowladda federaalka ku eedeeyeen in ay faragelin ku hayso bulshada reer Hiiraan, taas oo ay sheegeen in aynan u dulqaadan doonin. Sidoo kale waxay dalbadeen in magaalada Beledweyne ay iskaga baxaan saraakiil uu hogaamiyo taliyaha qaybta 21aad ciidanka xoogga dalka Cabdicasiis Cabdulaahi Qooje oo sabtidii gaaray magaaladaasi. Saraakiishani oo iyagu magaalada Beledweyne kula kulmay madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa waxay sheegeen in ay halkaasi u yimaadeen sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen gulufka shabaab looga saarayo deegaanada Hirshabelle. Saacado ka hor ayay ahayd markii maamulka gobolka Hiiraan uu ka hor yimid in ciidamada laga kaxeeyo Beledweyne lana geeyo gobolka Galmudug. Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo la xiray 31 Agoosto ayaa weli ku jira gacanta ciidamada ammaanka Soomaaliya iyada oo aan weli la soo taagin maxkamad. Caasimada online ayaa ogaatay in dowladda Soomaaliya ay codsatay muddo 40 cisho ah oo dheeri ah si ay dacwad rasmi ah ugu soo oogto Cabdirashiid Janan oo loo haysto dilal ka dhacay gobolka Gado. Sharciga Soomaaliya ayaa diiday in dowladda ay qof muwaadin ah xabsi ku hayso wax ka badan 24 saac iyada oo aan dacwad ku soo oogin. Waxay socodsan kartaa waqti dheeri ah ilaa 48 saac, taasi oo loo ogolaaday. Cabdirashiid Janan ayaa waxa uu ku xiran yahay xabsi ku yaalo xarunta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA, isla markaana uusan qorshe u ahayn in la horgeeyo maxkamadda. Master Janan ayaa ku jira xabsi guri maalmo ka hor laga soo wareejiyey Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur, kaas oo ku dhex yaalo gudaha xarunta hay'adda NISA ee Habar Khadiijo. Saraakiil ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya ayaa caasimada online u sheegay in hay'adda NISA lagu wareejiyey Cabdirashiid Janan isla markaana kala wareegeen mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliya iyo madaxtooyada qaranka. Annaga waana laga wareejiyey Master Janan, waxaa la wareegtay xukuumadda waxaana lagu hayaa xarunta NISA, ayuu yiri sarkaal ka tirsan booliska Soomaaliya ee gobolka Banaadir oo aan qarinay magaciisa iyo xilka uu hayo. Dowladda Soomaaliya ayaa 31 bishii hore ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ka xirtay wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur oo loo yaqaan Janan, waxaana laga reebay diyaarad ku sii socotay dalka Itoobiya oo uu raaci lahaa. Wararka laga helayo gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxay sheegayaan in deegaanka Buurane maanta qaraxyo khasaare geystay lagula eegtay ciidamo ka tirsan kuwa Midowga Afrika ee AMISOM. Qaraxyada oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa goobjoogayaal waxay u sheegeen in lagu aasay meel u dhow saldhigga ay ku leeyihiin deegaanka Buurane ee degmada Mahaday, isla markaana qaraxyada oo laba ahaa ay ku geeriyoodeen 4 askari oo ka tirsan ciidanka AMISOM. Wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in qaraxa koowaad kadib ciidamo gurmad ah lala eegtay ee la kulmeen qarax kale kaas oo geystay khasaaraha ugu badan ee gaaray ciidanka AMISOM. Qof ka mid ah dadka ku nool deegaanka Buurane ayaa risaala u sheegay in qaraxa kadib ciidanka AMISOM ay sameeyeen howlgallo isla markaana ay xireen dhalinyaro ka mid ahayd dadka deegaanka. Ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxyada maanta deegaanka Buurane lagula eegtay ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM. Hase yeeshee qaraxyada noocaasi oo kale ah ayaa waxaa inta badan mas'uuliyadeeda sheegta ururka Al-Shabaab. Kooxda Al-Shabaab ayaa mar kale deegaanka Buuqo Qable ee gobolka Hiiraan ku soo bandhigtay qayb labaad ergadii soo xulay xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Ergeyada oo iskugu jira rag iyo dumar ayaa tiradu waxay gaaraysaa ilaa 95 oo ay ku jiraan 11 dumar ah, sida ay baahisay warbaahinta Al-Shabaab. Sida ay sheegtay Al-Shabaab, ergeyada ayaa ka kala yimid magaalooyinka Jowhar, Beledweyne iyo Muqdisho. Sida oo kale warkaani ayay Al-Shabaab ku sheegtay in ergeyadu muddo 10 maalin ah ay ku sugnaayeen deegaanka Buuqo Qable isla markaana ay toobad keeneen sida ay hadalka u dhigtay. Horey Al-Shabaab ayaa u soo bandhigay odayaal ka mid ahaa ergeyadii wax ka soo xulay baarlamaanka Soomaaliya kuwaasi oo tagay deegaanada ay maamusho. Arrintani ayaa waxa ay ka dambeeyay kadib markii 15 bishii Julaay uu soo baxay bayaan ka dhan ah ergeyada kaas oo lagu qabtay in ay 45 cisho isku soo diiwaangeliyaan.